Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaah. Iyadoo cashiro fara badan aan soo wada faa'iidaysanay qaybaha OTC-ga suuqaasi binary ayaan ugu jirnaa waana muhiim jiddan taasi. Iyadoo hadba tilaabo aan horey usii qaadi doono cashiradeenni halkaas ayaa lasii mariyaa waana very important taas inaan la wada soconno. Ardaydii cashiradan live u qaadatay way ka wada faa'iidaysteen wayna ku guuleysteen suuqan inay lacag ka faa'iidaan. wayna jaangooyadiina way la qabsadeen intriga ay ka galayaan wayna ku tababarteen kuwaasi waa ay gudbeen kuwa nagu cusubna sidaas ayaan u rajaynaynaa waana muhiim jiddan. Waxaa idinla hadlaya waa injineer maxamed xamuud barre oo ku takhasusay cashiradan qaybaha forex-ka waana very important taasi. ardayga jeclaa cashiradan tilaabooyinkaas ayuu sii qaadi doonaa waana muhiim jiddan. hadda stateskaasi halkaasaa laga sii wada faa'iidaysan doonaa ardayda kala duwan Somali Star faa'iidadaasna waan qaadanay halkaas wuuna noo sii joogayaa suuqa halkaasaan kasii socon doonaa waana muhiim jiddan taasi iyadoo tilaabooyin fara badan aan sii qaadi doono. marka ardaydii nagu cusbeed ayaan la hadlaynaaye waa inaad ka faa'iidaystaan ayaa lagu talgalay suuqyadani kala duwan OTC-ga waana tababarateen haddeer waa trade gareyn kartaan akoon really ah sidaan filayo waa maadaama aad aragteen sida loo sameeyo withdraw lacagta lagala baxo IQ option brokerka dhexdiisa sida lacagta looga saarana waad ka faa'iidaysateen horey u socda ayaan idin leeyahay waana injineer maxamed xamuud barre iyo casharadiisii qaybaha forex-ka loogu talagalay ardayda suuqa inay ka faa'iidaystaan suuqana online soo sameysaan trading candles waa markii labaad oo aan maqashay ila soco suuq saasaa looga faa'iidaystaa horeyna looguma sii jiro suuqani 2 minutes baa ku tababarnay 5 minutes waa la isku tababaraa 15 minutes waa la isku tababaraa 30 minutes waa la isku tababaraa hadba intaa doontid weeye waana muhiim jiddan taasi. marka aad kasii horey usii socotaan ayaa la rabaa oo idinka ismaaraysaan markaan waa kasoo gudubteen gacantii qof aa wax ka sugayseen iyo tababarkii ay qaadanayseen waana muhiim jiddan taasi. okay sidee marka maadaama aan kasoo wada faa'iidaysanay cashiro fara badan oo qaybaha forex-ka kala duwan iyo qaybahan OTC-ga OTC-ga binary anaga labadii wiig la soo dhaafo waxaan shaqeynay $287 waa labadii wiig oo macaash ah ayaa ka shaqeynay marka waxaa loo baahan yahay tartiibtaas inaad la socotaan. akoonka la idinku tababarayo waa akoon really ah looguma talagelin in la idinku tababaro $287 macaashaan labadii wiig aan soo qabanay marka waxaan rabnaa akoonka idinku tababarayna waa akoon really ah ma akoon diima ah ama akoon aan waxba laga macaashayn waayo sababtoo ah akoonkani wuxuu idiin anfici karaa inaad practically oo rasmi ah hesheen buu idiin caddaynaya halkaas. suuq markuu saan isugu dhex yaacsan yahay ma gelaysaan oo hubsanaysaan baan idin leeyahay marka hubsataan kadib ayaa suuqa soo gelaysaan. sometimes suuqii maalmaha ama la gelin baa jiro markuu suuqa dhex yaacsan yahay oo aad istiraado haddii 2 jeer khasaartana suuqa waa laga nastaa relax baa la qaataa waxba lacag lagama raadiyo suuqaas oo kale maalinkaas oo kale waayo maalin kale ku imaanayso ayaa ku imaanayso maalmaha suuqa aan laga macaashinna lamaba taabtaba laguma soo kaco waana inaad saa u fahantaan ayaa la idinku talagalay. steps kala duwan oo cashiraha waa soo qaadateen intii lasoo faa'iidaysan karo waa soo faa'iidaysateen marka hadda waxaa la idinka rabaa idinka inaad dadka usii faa'iidaysaan waana muhiim jiddan taasi. marka waxaan isugu soo noqon doonaa cashiro kale oo tababar kaloo dhinnaa in ladiin dhammaystiro waxaa kaloo igu imaan doontaan tababarka kale markaa idiin dhammaystiro inaad idinku fasaxantihiin suuqa inaad gashaan oo lacagtiina realka ku gashaan oo idinkaa ka shaqaysataan halkaas ayaan rabnaa. okay sida trade-yada loo xirto oo breadka hadda aan u xiranay leenkaas aan u xiranay inaan ka macaashna aan rabno waad fahanteen qaabkaasaa loo xirtaa leenka ila soco. ardaygii jeclaa cashiradani marka anaga lacagteennii kor waa sii korinay akoonkan 90 baan sii gaarsiinay isagoo kusoo bilownay lacag yar trade-kan waxaa lagu soo bilaabay lacag aad u yar waxaa lasoo gaarsiiyey $90 buu aad sii mariyaa in la khasaarana saasaana loo trade gareeyaa waana fahantay $90 way 10 senti baa ka dhimay $90. okay khasaaraha saa isaga ilaalin laheedeen inaad ka fikirtaanna waa muhiim
jiidan taasi ardaygii jeclaa cashiradani halkaasuu ka faa'iidaystay. Steebyo kala duwanna waan soo qaadanay. Suuqa waa kasii bixaynaa annaga, xilligan kuma sii jirayno, waqti uma hayno. Intaan kadib ardayda marka waxaa lagu dhiirigelinayaa halkaa inay ka faa'iidaystaan, steebiskaasna ay hore usii qaadaan. Waana muhiim jiddan. Halkan waxaan kusoo sheegay, halkan lot size-ka waa yaraysan kartaan, waa badsan kartaan. $1 baa gaarsiin kartaan, $5 baan dhiganay, laakiin idinka $1 baa iska gaarsiinaysaan. Lot size-yada lot size walba $1 baa ka dhiganaysaan marka ku cusubtiin, haddii kale waa khasaaraysaan. waa ka $291 baan sii mariyaa, waana wiigii labadii wiig oo u dambeeyey $291. haddii aad shaqaynayso meel aad ka helayso ma jirto. 2 wiig $293. haddii aad tiraahdo qof baan u shaqaynayaa 2 wiig baa intaa ku qaadanaya, ma ku suuroobayso. qof wax wiig kugu siinayana ma jiro Soomaaliya. halkan kaliya ayaa waxaad u haysataa freedom, financial freedom baa la yidhahdaa. suuqani hadba tababarkaaga ku xiran tahay. $291 2 wiig. marka waan yareeyey, waxaan yareeyey lot size-ka ku galay. haddaan badin lahaa way kasii badnaan lahayd lacagtaasi. waana ugu talagalay ardayda inay ku bartaan halkaasi. qof walbo faa'iida halkan geeska ayuu kusoo qaadanayaa. ardayda macaashtay geeskana lagu soo qaataa, halkana lagu soo qaataa ayaga. hadaad taabto mid walba oo Soomaaliya kaga jirana calankiisa ayuu siinayaa. qof walba oo Soomaaliya kasoo galo calanka ayuu siinayaa iyo lambar u gaaray iyo wuxuu ka faa'iido. inta Soomaalida hadda waxaa hogaaminayo waa annaga. Soomaaliya oo dhan inta joogto isbuucan annagaa ugu lacag badan. waa isbuucan kaliya waxaan ku qabanay $291. Soomaaliya marka annagaa hogaaminayno wiigani, halkaas kusoo qaadanaya qof walba qofuu ka sareeyo. waxaa naga sarreeyo oo nala mid ah, kanaa naga sarreeya waa Brazilian Ramula, kaasaa naga sarreeya. 200 wuxuu shaqeeyey wiigani 291.8, annagana 76. ninka Brazilian kaliya naga sarreeya. wax Soomaaliya annagaa hogaaminayno, waa akoonka riyalka ah. Soomaaliya oo dhan annaga ayaa u sarreyno. waxaa u horeeya Soomaaliya IQ Option Platform-ka faa'iidada isbuucani Engineer Maxamed Maxamuud Barre. halkaasuu kusoo qaadanaya. waxaa iga horeeya ninka Brazilianka wiigani. ninka Brazilianka waxaa ka horeyn kara wadamo kale, waa ka koreyn kara, laakiin Soomaaliya oo dhan annagaa ugu koreyno. inaad saa u fahantaanna waa muhiim jiddan. waxaa idinla hadlayo waa Engineer Maxamed Maxamuud Barre. casharada